anoo gudan baan dhashay oo malay gudan baan ahaa ma garata anoo gudan baan dhashay marka nacam sideedan baa laygu daayay dee sideedan baa hadda nin weyn baa noqday mo waalidkana sideedan buu igu daayay ilaa hadda marka dadkana inta badan waxay dhahaan waa la sarsaraa oo mase qofka macnaha waxba dhiig baa laga daadiyaa waalidkeena wax ayaga may sameynin marka dee haddana waa weynaaday arrintayda bal waxay diinta ka qabta midda koobaad in ay fiiriso may mar haddaa midda labaadna anoo tan labaad tan labaad midda labaadna anigoo yar baa macnaha hadda ka hore lacag $100 oo faalsa ahayd baan dukaan ku qalday oo aan ka sarrafay hadda nin weyn baan noqday lacagtayda macnihii masaajid ma dhigi karaa ma sadaqayn karaa see iiga bixi kartaa lacagta faalsada ahayd oo $100 oo anoo yar waan ogeed faalsan ahayd waa ogeed inay faalsa tahay waan yaraa laakiin haa waan ogaa arrinta waa socodsiisay dukaankii ma taqaanaa qofkii aad siisay ma garanaysaa ehelkiisa qaraabadiisa ninkii waa ka tagay waddanka hadda ma joogo waagaas dukaan u lahaa may ma heli kartaa ninkii maya ninkaas iyo qaraabadiisa wax heli kartid ma laha maya waaba yaraaba wixii waaba waqti hore waa sadaqay ninkaas u niyeyso qofkaas u niyeyso sadaqay lacagtaas insha allah walaalka kale wuxuu leeyahay waxaan ku dhashay anoo gudan ma lay gudaya mar lama ma lagu gudaayo shardi maaha in lagu gudo mar haddii ay xasishay sifada guni allahuma hadduu wax ka dhiman yahay saa u gudneed ee qallooc ku jiro oo wax ka dhiman yahay waa la dhamaystiraa laakiin haddii si saani a u gudan tahay wax kale a u baahan tahay male insha allah maalka kalena waxaan yidhi waa sadaqaynaysaa maadaama qofkii aad ogeyn aan heli karin maxaa yeele maalka intaad sadaqayn waxaa la rabaa horta inaad raadisid cidda lahayd haddaa ciddi waysa dadka dhaxalka lahaa inuu dhintaa laga yaaba ninka wax ka qaadatay qaraabadiisa raadi qaraabadiisa ku wareeji aabahana maalkan ka qabaa dhihi kartaa maalkan abiina iskale xataa sharti ada u sheegin waa ka xaday iyo ada u sheegin waxaa ku samaysay amaanadaas inaad iskacisa ilahna u tooba keentid insha allah labaas ku dadaal